بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان وسلام يا ولا لي سومالي ميلول بيتشوغان. حنكو سلام يا سلامة إسلامك سلامة عيسى شرفت له. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت واحد على استي إن البرنامج ير وجار عن كورمه كاس وكسابسن حالها مواقع ذا ربطة كجدا وحوي جوبها شقده. waxaan rabaa inaan toddoba qodob oo muhiim u ah bulshada qaybaheeda kala duwan qaybta maamulka marka la yiraahdo ama maareeye ama maamule cid walba oo maamul ama hoggaan la xiriidhaysa baan rabaa insha Allah inaan toddoba qodob oo muhiim u ah maamulka aan kaga warramo haddii Allah idmo aqoon badan iyo cilmi badan in kuma dhaamo laakiin xoogaa yaroo oo aan soo qorto waan jeclaystay in walaalay Soomaaliyeed aan ula wadaago inta badan waxa dhacda shirkadaha markii la joogo ganacsiga maamulka iyo shaqaalaha dhexdooda waxa dhexmara waxa la yiraahdo misunderstanding isfaham waa aad iyo aad u weyn baa wuxuu ku dhex yimaadaa maamulka iyo shaqaalaha dhexdooda taasana waxay sababtaa in maamulku uu mar walba fahmi waayo shaqaalahooda waxa ay tabanayaan waxa ay mar walba caqabaduhu ka imaanayaan iyo waxyaalaha loo xallin karo barama insha Allah inaan ka waramo taladan cid walba oo maamula cid walba oo aqoonteeda la way kaga faa'iideysan karaan qodobka koowaad oo aan rabno inaan isla qiimeeyno waxa way trustiga is-aaminaada qodobka aaminaada haddii aniga iyo maamulka iyo shaqaaluhu hadiisan dhexdooda is-aaminaad aysan ka jirin waa adag tahay in la is-aamino oo shirkada horumarkeeda iyo baraaraha laga taliyo si la isu aamino waa in qodobkan aad diiradda loo saaraa qodobka labaad maadaama aad maamulo tahay waxa lagaaga baahan yahay transparency cadaalad inaad samayso waxyaalaha inteena badan shirkadaheena Soomaalida iyo dhammaan aan ku kala tagnay oo ay shaqaaluhu inta badan caqabadaha keenaya oo hormuudkii maamulka u xumaanaya waxa lambar 1 oo cadaaladda waxyaalaha Ilaahay subxaanahu wa ta'ala loogu dhawaadana cadaaladda ayaa koob ka ah in maamuluhu ama maareeyuhu cadaaladda aad ugu dadaalo haddii maamulkaaga ama reerkaaga ama familkaaga ama dadkaaga xataa meesha ay ka shaqeeyaan waxa la rabaa transparency cadaalad inaad ugu dhaqanto waa qodob aad muhiim u ah qodobka saddexaad credibility aqoonsashada qodobka saddexaad aqoonsashada biliis waxa dhici karta shaqaaluhu inay shaqo qabtaan ay horumar sameeyaan ay barnaamijyo soo jeediyaan waxa qofka maamulka ama maareeyaha laga rabaa inuu u aqoonsado shaqadaas aad qabateen shirkadu idinka idinku tiirsan tahay waad mahadsantihiin jazaakumullahu khayran shaqadiina waa idinku aqoonsaday si fiican baad u shaqayseen iyo wama dalika waxa la xiriira waa muhiim bay u tahay qodobka afraad credibility-ga ku tiirsanaanta in ay maamulku inta badan shaqaalahooda u sheegaan inay shirkadu iyaga ku tiirsan tahay inay horumarku iyaga ka yimaadaan sida loo shaqeynayo iyaga ay ka timaado profitku iyagu ka yimaado wax walbo go'aan oo shirkada lagu shaqeynayo iyaga ayaa asaas u ah waa inay iyagu shaqadu ka timaadaa waa inay iyagu wax walba ka yimaadaan si ay shirkadaas horumar u gaadho qodobka shanaad waa inay qiimeyn jiraan in la isku qiimeynayo qofku inuusan ka baqin maamulkii laakiin uu qiimeyn ka baqayo in la isqiimeeyo value of assistant ma la isku sameeyo waxa jira qofka maamulaha ah saddex shay hadduu ku guuleysto waxa laga yaabaa in horumar ballaaran ay shirkada gaadho maxaa kamid ah learn adapt and apply mar walba ay shaqaalaha wax bartaan mar walba ay shaqaalaha adaptation gareeyaan oo shaqadii mataqaana ay gareeyaan mar walba application gareeyaan oo fahmaan mawaaqifta iyo waxa way nidaamyada casriga ah shirkadaas shaqaalaheeda waxay gaarayaan heer ay iyagu shaqada isku diraan iyagu horumarka keenaan maamulkooda la shaqeeyaan maamuluhuna capacity buildingkiisu aad ugu sareeyo qodobka lixaad waxa way dhiirigelin mar walba isku day shaqaaluhu haday shaqo qabtaan inaad dhiirigeliso dhiirigelintu laba qaybood bay isku jirtaa financial motivation iyo non financial motivation financial motivation inaad qofka ku dhiirigeliso inaad lacag siiso in xisaab xirka waqtiyada la xisaab xiro waqtiyada shirkadaha kale ay dhamaadaan in lacag lagu abaalgudo la yiraahdo lacagtaas aad mutaysatay intaas oo dhan baa soo shaqeynaysay grazio
financial motivation waxaa la yidhaha inaad shahaado sharaf ku casuunto inaad si kale oo mataqaanaayo boonboonin ah warqad kusoo dejiso aad sharafto oo karaamayso iyadana aad bay muhiim u tahay qodobka toddobaad oo ugu dambeeya waa misunderstandinga sidee buu maamuluhu ku fahmi karaa waxyaalaha aan la fahmi karin how to understand misunderstand fine understanding misunderstanding sidee buu u fahmi karaa maamuluhu waxyaalaha aan la fahmi karin oo shirkadda dhexdeeda ka dhex jira inta badan shaqaaluhu waa is haystaan shaqaaluhu mataqaana iyaga kala dacwo ah iyaga isqabsada maamulka waxbay ka tabanayaan waxyaalahaas oo dhan waxaa la rabaa maamuluhu inuu xadkeeda iyo xuduudkeeda iyo dulqaadkeeda leeyahay qodobadaas waa qodobo aada muhiim ku anfacaya aad baa umahadsantihiin shukran jazakum allahu khayran intaas kusoo koobaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu